السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد الله يا رمضان كريم. ما دام بريتو ما أنا بريت 4 دعم 3 ونكتب رمضان مقدونا إن شاء الله برنامجيدي أو طلق لي هورمارينتا يتوسيد شعبك وضبطنا يقول جيران أيا ويلك في جرنا ما أنت وحن جوجنا هردا كملة marka waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc aad muhiim u ah oo ku saabsan jaha wareerka siyaasadeed maxaa yeelay kadib markii sano aan dawlad la'aan ku jirnay oo adduunkana uu aad u qasmay dhinac walba waxaa isku qasmay wixii cadow iyo saaxiib ah oo dad badan ay waqtigooda geliyaan meel fadhi ku dirar ah ama meel badan oo shaah lagu cabo iyo guryaha laftigooda oo laga hadlo wadankan ayaa cadow ah imaaraadka ayaa Soomaaliya cadow ku ah سعودي قدنو نقلي هاي بترول كان لما ربع إلى صار دجالكي كوادي دجالكي لبعض حيوان الله ضلها مريكان كا وحواي جيدو نقلي هاي وطن كان عنا جعل تركي كان جعل تركي كان نلعب مركا دبكي وحين نقدين ليت جهورير سياسات مال والبا كان وحاوجو عن أيضا أنجرين هدف سياسات دولة جهة جاجين لهاد ومدة در نجم مقام مركا دبك كلا أخوني هنا علماء الدين كا iyo dadka walaalaha laga rabaa inay xoogaa ay wax ku daraan oo ay soo jeediyaan aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo adduunka ma jiro wadan saaxiib ama wadan cadow la dhihi karo laakiin waxaa jira siyaasadda waxa waa politics is a national interest waxa muhiim ah kaliya in la ogaado wadan walba inuu leeyahay dan siyaasadeed siyaasadda ugu fiican waxa waa siyaasadda wadankaaga aad horumar ku gaarsiin lahayd waxaa dhici karta horumarkaas in uu keeno in wadamo qaarkood ay ku noqdaan cadow wadamana saaxiib haddii siyaasadda isbedesho waxaa dhici karta in wadankii shalay cadow ahaa in uu noqdo talabaadna ma jiro laba wadan oo isjecel ama isnacab waxaa jira danahaas meesha ay ka fushan karaan iyo sida isugu yihiin badanaaba wixii ka dambeeyay laxdameeyadii oo wadamada Afrika iyo wadamo badan ay xornimo qaateen waxaa dhacday in laba wadan walba oo xornimo qaatay oo xuduud ka dhaxeeyay inay mar walba ka dhaxayso waxa la dhaho arka enemy ama maaragtay cadowtinimo soo jireena sida Pakistan iyo India Arabta iyo Israa'iil Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo fara badan marka taa macnaheedu ma aha inay shacabku inay isnacbnaayeen ama ay sajirtay wax ay isku haystaan laakiin waxaa jiray danahooda siyaasadeed xuduud la isku haystay dhul la isku haystaa khayraadka lagu heshiin waayay wax marmarka qaarkood waxa la isku dagaalaa dhaqaalihii meesha uu ka soo galay marka waxa ogaataa wadan walba maanta dunida jiro wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu maaragtay uu kaaga la isaga horumari lahaa dhaqaale ahaan wadan walba wuxuu jecel yahay Sacuudiga wuxuu u shaqeeyaa danihiisa iyo danta shacabka iyo sidii dhaqaalahooda ay ku sii wadan lahaayeen imaaraadka sidoo kale waxay ka shaqeeyaan dana marka Soomaaliya waxa u baahanahay in aan helno inaan ogaano maxay danteena ku jirtaa oo markay meel dheer meel fog gaaraysa maxaa yaani loo maleeyaa mesela ma jiro adduunka cadow iyo saaxiib waxaa jira dano gaar ah in wadan walba uu lahaan karo marka taa waxaan ula jeedaa waxay tahay inaan marka hore ogaano waxaa dhici karta in Pakistan iyo India oo hadda kala fadhiya oo muddo aan dagaalamin haddii India ay fursad u hesho Pakistan inay stability ama xasiloonidii meesha ka baxdo maaragtay haday dhacdo in Pakistan ay isku dhacdo dawladii ay kala burburto ileen labadooduba way kala taagnaayeen waa nuclear ninba ninka kale uu fiirinay horumarkoodii oo dhan waxay ku adjust gareeyeen in ay fiiriyaan ay sida isaga celin lahaayeen wadanka kale waxa laga yaabaa dhaqaalihii ay ku bixin lahaayeen horumarka wadanka gudaha inay ka doorbideen difaaca cadowtinimo ama weerarka iman karo maaragtay jiiraanka marka haddii wadankii jiiraanka ah uu baabao waxa u soo haraya kaliya in dhaqaale badan oo ay shalay cabsida ku bixin jireen difaaca iyo amniga inay meel kale ku bixiyaan taana waa arrin fiican hadda tusaale ahaan Israa'iil wixii kontameeyadii iyo laxdameeyadii ilaa iyo hadda waxay difaac weyn ku bixin jirtay dhaqaale aad u badan inay wadamada Carabta oo xooganaa waqtiga qaarkood mashruuciinaha inay ku bixiso maanta wadamadii Carabta oo dhan awood ay leeyihiin ay ku qabsadaan ay ku weeraraan dhinac siyaasad iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac military ba hoos bay u dhaceen marka waxaa dhici karta in ay fursad u heshay Israa'iil in dhaqaalaheedii ay geliso research ama baaritaan cilmi marka sidoo kale wadan walba sida Ethiopia mar walba
Ethiopia, Eritrea, Sudan wadamada jiraanka oo dhan wadan Soomaaliya jeclaan kara male maxaa yeelay wadan walba wuxuu fiirnaa wixii dhaqaalaha ugu maaragtay ugu jirto marka waa inaan mal awaalka aan ku noolnahay oo ah wadankan aan la jecel iyo wadankan aan nacab marka hore aan iska ilaawna inaan fiirinaa wadankee dana siyaasadeed anaga aan ka leenahay iyo wadankee baa anaga ay qasab ku tahay xataa inay naga iska ilaaliyaan ama ay naga dheeraadaan haddii naga dheeraadaan ma jeclaanayno laakiin waxaan ogaanaynaa waxyaabaha ku kalifi kara marka shacabku waxay u baahan yihiin in dhinaca siyaasadda wax badan laga tuso marka si loo ogaado waxaa kaloo meesha soo baxay dad badan ayaa waqtiga waxay ku dhumiyaan mala awaal siyaasadeed oo ah wixii dhacay kontameeyadii ama مثلا waxaa lagu leeyahay wadankeena batrool baa ku jira batroolkii ayaa loo dan leeyahay kheyraadkii loo baahan waa dhici kartaa kullihi waa been waa dhici kartaa wadanka inuu batroolka buuxo oo aan la rabin waa dhici kartaa in maaragtay ujeedooyinka loo qarsoon oo meel dheer gaari in laga leeyahay laakiin inta ku dhumi lahayd waqtigaaga waxyaabo oo aadan hubin waxa ka fiican in ay dadku ku wareeraan ama ay isku shuqliyaan sidii ay ku dhisi lahaayeen ururo dhinaca dhaqaalaha ururo dhinaca siyaasadda ka midaysan sidii midnimada loo soo celin lahaa sidii loo gaarsiin lahaa maxaa yeelay maanta Soomaaliya waxay taagan tahay qabiilka hataa way kasii baxday qof waliba saamili walba wuxuu taagan yahay asalkii taana waxa ugu wacan ma ahan wax qofku asiga doortay waxa ugu wacan dhinaca dhaqaalaha oo aad looga baaba'ay waxaa kaloo laga baaba'ay dhinaca tacliinta aqoon wax ilaalin karta male waxa meesha ka baxay amnigii dawladii ilaalin jirtay maskax caafimaad inay samaysanto telefishinadii iyo maaragtay waxa bedelay social media oo wax walba si xora u keena marka intaas waxay abuuri kartaa inay soo baxdo bulshad aan nadiif ahayn marka waxaa loo baahanyaa inaan dhammaanteena aan ka shaqeyno inaan dhinaca siyaasadda aan isfahamsiino iyo in aan sidaan ku soo saari lahayn ururo dhab ahaantii ka fog qabiilka oo ku mashquulsan sidii Soomaaliya as national interest-geeda ay aad ugu shaqeyn lahayd marka waxaan maaragtay aan ku guwaabinayaa in haddii waqtigu uu yahay مثلا waxyaabo ku saabsan meel dheer ah Mareykanka danta boqol sano kadib ama taariikhdii hore u dhacday dagaalkii koowaad dantii laga lahaa waxa maanta kaaga muhiimsan sidee degmada wax looga qaban karaa dad badan oo hadda bilaabay inay lacag aruuriyaan dhaqaalaha isu keenaan waxa muhiim ah in aqoon-yahanada oo dhan inay isu tagaan culamaa diinka inay isu tagaan kadibna laga shaqeeyo sidee baa loo gaari karaa dawladda Soomaaliyeed oo dhinaca qabiilka oo dhan sinaan fiican oo meel dheer gaaraysa keeni karta dimuqraadiyadda Yurub waxay ku soo baxday markii boqortooyo iyo maaragtay military ay baabi'iyeen oo dadkii la isdhexay jiray ayaa waxa la ogaaday habka kaliya oo sinaa ay ku imaan karto waxay tahay in dadku ay sameystaan doorasho xor ah sidoo kale macnaheedu maaha inaan doorashada ama dimuqraadiyadda kaliya aan raacno haddii la heli karo hab kale oo wanaagsan oo qabaa'ilada dhan ay ku mabsuudi karaan oo qof waliba uu ku qanci karo laguna gaari karo in dadku horumarkooda laga wada shaqeeyo taa waxa waaye waxyaabo la isku haysto oo dhan waxay tahay sidee baa kheyraadkii wadanka soo baxay qof waliba wuxuu ku fikrayaa kheyraadkii waxaa la geeyay gobol hebel ayaa aad u qaadatay beeshii kalena waa laga tagay waxyaabahaas oo dhan haddii la keeno hab siyaasadeed oo lagu sugi karo in kheyraadkii ka soo baxay dadku si toosa sharci ah oo maaragtay apparent ah oo cad inay u qaybsadaan wixii maaragtay imaan karana istaraatiiji ahaan in loo helo sharci celinaya taana waxaa looga bixi karaa is-afgarawaaga mar walba soo noqday oo ku salaysan dhinaca siyaasadda marka mar labaad waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim aan noqono dadkii mar walba isu gudbiya fikrada caafimaad qaba iyo maaragtay arrimo kale oo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.